هببرو لباح بيسوا وضعتها داد هببرو أركتد لباح بعد أركدون تاوي وماشي تشوف مركا هداد داعش أركتد دولان شيء كحجة أو أي هرساد يجوجل لك أطهى كو ومدى الدين تلاقى فسادينية دجال كان إن ست دق الله شقيه intii suuragal in la dedejiyo ololahan oo nimanka lagu soo afjar bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka bari degan magaalada Boosaaso iyo degmooyinka raacsan ee dadkan waxa ay yihiin iyo say u dhaqmayaan iyo diin intay u jiraan indhahooday ku arkeen marka sidaa darteed uma baahna inaan u sharxo iraahdo war waxaan diin ma aha ama diin ma wadaan oo dadku iyagaaba iiga xogogaalsan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wassalaamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaciin kulankan maanta waxaan kaga hadli doonaa dagaalada muddo bil iyo dheeraad ah ka socday gobolka bari buuraleyda calmiskeed loo bixiyay oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kooxda Daesh mawduucan saddex qodob baan kusoo koobi doonaa qodobka koowaad waxaan rabay inaan fikrad ka bixiyo Daesh maxay tahay ujeedooyinkeedu sidee bay u dhaqantaa meesha ay gasho xaalkeedu see noqdaa waxaan kaloo ka warramayaa sida ugu habboon oo loola dhaqmi karo ama loola falgeli karo qodobka u dambeeyana uu noqonayaa baaq ciidamada ku socda iyo hogaankooda ama saraakiishooda dhinaca diinta inaan ka eego mawduucan iyo dadkani waxa ay diin ahaan yihiin laba arrimood baa iiga filan mid ka midii waxa weeye culimada Soomaaliyeed ururada iyo kooxaha noocan ah ilaa iyo intii ay Soomaaliya yimaadeen si aad u faahfaahsan oo u xeel dheer ayay uga hadleen oo u sharxeen shubhooyinka iyo afkaarta ay wadaan inay diinta islaamka khilaafsan tahay taasoo keentay in culimo badan oo Soomaaliyeed oo reer Puntland ragii ugu waaweyn culimada ay ka mid yihiin lagu laayay marka arinta labaad oo iga kaafinaysa waxa weeye bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka bari degan magaalada Boosaaso iyo degmooyinka raacsan dadkan waxa ay yihiin iyo say u dhaqmayaan iyo diin intay u jiraan indhahooday ku arkeen marka sidaa darteed uma baahna inaan u sharxo iraahdo war waxaan diin ma aha ama diin ma wadaan oo dadku iyagaaba iiga xogogaalsan marka waxaan doonayaa inaan mawduucyo kale ka warramo oo aan ku soo bandhigayo waxaan maxay yihiin iyo maxaa joogitaankooda dalka ka dhalanaya iyo sidee ugu habboon aan ula dhaqanaa iyo talooyinka kale waa midda koowaad waxaan u baahannahay mustawaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaynu u aragno kooxdan Daesh inay khatar istiraatiijiya ku tahay ummadeena iyo dalkeena oo dhan jiritaankiisa iyo midnimadiisa iyo madax banaanidiisaba inay khatar ku tahay ay khatar ku tahay diintooda iyo noloshooda ay khatar ku tahay dadnimadooda iyo isku kalsoonidooda waxaan u baahannahay in dadkeenu ay wada fahmaan waxaani in ay yihiin aalad awoodo kale ay u adeegsadaan inay ku kharibaan oo ku burburiyaan oo ku daciifiyaan dalalka ay doonayaan inay farageliyaan ama ay qabsadaan sida ay arrinta gogol dhiga ugu sameeyaan waxa weeye Soomaalidu waxa dhihi jirtay hoboboro libax bay soo wadataa haddaad hoboboro aragtid libax baad arki doontaa weeye oo meesha jooga marka haddaad Daesh aragtid duulaan shisheeyaa ku xiga oo ay horseed iyo gogol dhig u tahay kow ummadda diinta laga fasaadinaya labo dadnimadooda la dilaya midnimadooda la baabi'inaya nidaamka iyo dawladnimada ayaa laga burburinaya oo fawda laga dhigaya dhulkii iyo dadkii dalka iyo dadka sumcadiisa ayaa la baabi'inaya ilaa heer dalka iyo dadka oo dhan lagu shaabadeeyo argagixisa la gaarsiiyo si ay u abuuraan xaalad bulshada meesha degan ugu abuuraan quus iyo isdhiibid iyo inaanay wax iska qaabila samayn karin haddii xataa lagu kaadshayo taasoo gogol u noqonaysa ciddii soo dirsatay meeshaan si dhib yar inay ku qabsato ama u farageliso arrintaas
sida heerka dadka loo gaarsiinayo marka tilaabooyin bay qaadaan tilaabooyinka ay qaadaan waxa weeye waddankaas ay joogaan waxay ka qortaan maleeshiyooyin waxay kaloo dunida ka keenaan dad maafiya ah oo calooshood u shaqaystayaal ah oo dadku islaamnimo iyo diin baa laga yaabaa inay ka fakarayaan hadday doonaan aan muslim ahayn ama qaar badan aanay muslimba ahayn dadkaas oo shaqooyinka aadka u xun oo qaabka daran ay ku fushadaan maxay samaynayaan xasuuq bay samaynayaan isdaba joog ah oo ay meelo badan dad badan ku gumaadayaan waxay samaynayaan dil fool xun oo dadka niyad jabinaya gowraca aad aragteen baa ka mid ah oo aadka ay dadka ugu bajiyaan si dadka loo cabsi geliyo oo loo quusiyo oo inay nimankaa ka hortagaan oo dhan dadku uga quustaan waxay ku darayaan dicaayad xoog leh oo ah nimanka inay khatar yihiin inay niman bahalla yihiin inay ku cunayaan inay ku gowracayaan inay saa kaa yeelayaan taas oo keenaysa dadku inay meesha ka qaxaan oo dalka ka guuraan si ay gumaadkaas uga fakadaan waxay samaynayaan markay dagaal noqoto ama la diriirayaan inay ka baqaan oo ka cararaan waxay kale oo dadkani samaynayaan bulshada way musallifinayaan xoolahay ka boobayaan dadkii faqiir baa laga dhigayaa si ay maalkaa ay boobeen ugu isticmaalaan maalgelinta maleeshiyooyinka iyo maafiyada calooshood u shaqaystayaasha ah oo ay dunida daafaheeda ka keeneen waa laga yaabaa reer boosaaso inay aad u og yihiin ganacsatada in aad loo boobi jiray oo qofku lacagan sanadkiiba soo gelin haddii la doono keen la oranayay haddii uu diidana meesha xer la oranayo hadduu diidana meesha laga gubayo ama isaga la dilayo waxaasoo dhan dadku waa og yihiin xoolahan la idinka qaadayo waa xoolihii maleeshiyooyinka iyo maafiyada dibadda looga keenayay oo dalka lagu soo gelin lahaa oo lagu maalgelin lahaa kuwa soomaaliyeedna lagu qoran lahaa arrintaas marka ay tilaabooyinkaa qaadaan oo dadkii ay u diyaariyaan sidii la doona in laga yeeli karo waxaa markaas waa xaaladii faragelinta shisheeye oo quwado shisheeye inay yimaadaan oo la yidhaahdo waxaanu la diriraynaa argagixisada adiguna ma diidi kartid oo waa lagaa adkaado waa lagu burburiyey dowladdaadii dadkaagii dhaqaalahaagii amnigaagii meel walba waa lagaa qarribay dadka diintii baa lagala diriray dadnimadii baa lagala diriray dadku ciddii raranaysa iyo ciddii addoonsanaysaba diyaar bay isaga tahay marka qolo kaloo inay ku rarata rabta oo dowlado ah baa imanaysa oo ku odhanaysa argagixisadaan la diriraya war soo dhowaado iga cesha marka ninkii ku qabsan lahaa waa lagu ogolaysiiyey taariikhda dadka la socday markii ugu horreysay ciraaq baa laga sameeyey kooxdan suuriya waxay ka howlgaleen afghanistan turkigay falal badan ka fuliyeen waxay ka fuliyeen masar waxay ka fuliyeen libiya waxay ka fuliyeen mali waxay ka fuliyeen soomaaliya waxay ka fuliyeen yemen meelo badan bay ka howlgaleen oo caalamul islaami ka mid ah waxaas oo dhan hobobaro libaax bay wadataa weeye faragelin shisheeye iyo dalkii in la burburiyo dhaqaalihiisa iyo dowladnimadiisa iyo umadnimadiisa ayay ka shaqaynayaan markii marka lagu qabsado awoodo kaa xoog badan yimaadaana sidii la doono ayaa lagaa yeelaya qodobka labaad oo aan rabay inaan xuso wuxuu ahaa waxaan see ula macaamilaynaa horta dagaalada lala galo way dheeraadaan inta badan ilaa ujeeddadii laga lahaa laga gaarayo waxaa dalalka qaarkood la xaqiijiyey in diyaarado loogu dejiyo hubka oo dowladihii ku lahaa waa la diriraynaa laftoodu ay hubka u dejiyaan marka inta ujeeddadii lagaa lahaa aad ogolaanaysid ama lagu bislaynayo inaanay horta dagaalkoodu dhammaan baa dhici karta innagu marka maanta maxaan u baahannahay dagaalkan in si deg deg ah looga shaqeeyo intii suuragala in la dedejiyo ololahan oo nimankaa lagu soo afjaro waxyaabaha ina ku caawinaya in si deg dega loo soo afjara waxaa ka mid ah horta waa mide dadkani ma aha dad afkaar iyo mabaadii faafinaya oo shacabka qancinaya oo dad taageersan oo qalbi u taageersan haysta ma aha waad aragteenoo dadka diin uma sheegaan oo diin baan idin ku dhaqaynaa ma yidhaahdaan oo dowlad midda idiin dhisan ka fiican baan idiin dhisaynaa ma yidhaahdaan oo noloshiinaan wanaajinaynaa ma dhahaan oo dulmi idan haystaan idinka qaadaynaa ma dhahaan
bal iyagaa dadka dulminaya oo boobaya waa loo jeedaa waa koox dagaalkeedu uu dana gaara iyo mashaariic loo dirsaday yahay oo maslaxad u dagaalamaysa markay maalka ay soo doonteen waayaan ama ay naftooda khatar inay ku jirta dareemaan way kala carari doonaan waxaa kaloo ka mid a dadkani hoggaan diineed ama siyaasadeed ama military oo sumcad iyo soo jiidasho iyo kalsooni lagu qabo oo isu haynayana ma laho oo haddii dharbaaxooyin xoog la ku dhacaan saamayn degdega bay ku yeelanaysaa midda kale waa dad khaliida oo dalal kala duwan laga soo ijaartay ama laga qortay oo aan wax isku xiro oo badan lahayn oo aan mooryaannimadaas ahayn kalsoonida u dhaxaysa ay yar tahay sidaa darteed ghaaliban waa islaayaan oo waxa isku tuhmaan inay kanbaa ijaajuusay iyo kana dhabar jabiyay aad bay isu xasuuqaan taariikhda laga hayo meelaha ay ka howlgaleen xataa ururo dhan bay baabi'inayaan oo ciidankooda ka mida waxaa kale oo ka mida dagaalka lagula jiro ciidan gurmada oo u imanaya dee ma jiro ninka dhaawacma si loo daweeyo meel lagu daweeyana waa inay waayaan bay u badanta midda kale awoodda lagu waajahay iyo awooddooda faraq aad u weyn baa u dhaxeeya oo ciidamada puntland oo meeshan ka dagaalgelaya iyo waxaani marka la eega xagga tirada iyo qalabka la haysto aad bay u kala sarreeyaan waxaa kaloo ka mida shacabkii iyo dunidiiba inay dowladda ku taageerayso shaqadan ay wado si marka arrintaas in dhaqsa loo soo afjara ah marka la dhaqsaha loo soo afjara inta lagu qamaamo in dadka ay khatar galaan uma jeedo laakiin in dagaalkani aanu joogsan ilaa la cirib tiraya weeye intii la dadejin karana la dadejiyo kow waxaan u baahannahay meelaha nimankaas gurmad dad ah uu uga iman karo oo bad iyo berriba in laga xiro baynu u baahanna si aanu ugu iman gurmad ciidana iyo mid dhaqaalatoona arrinta labaadna waxa weeye meelaha dakhligu uu ka soo galo in laga jaro oo dadkii baadda ay ka qaadayeen laga shaqeeyo qodobka dambaan ku sharxayaaye in dadku magaalooyinka lagu baadayo ay ammaan ku helaan oo ay yur dhigi karaan oo lacagta u diidi karaan marka arrintaas maalka ay dadka ka qaadayaanna waa in la joojiyo sida lagu joojin karaana waa in xoog badan oo waa qodobka saddexaade hubka ugu fiican oo dadka noocaana lagula diriro waa hubka amniga iyo sirdoonka way waxa lagula diriro hadday noqon lahayd gudahooda in sir laga helo hadday noqon lahayd dariiqa wax u marayaan duruqda wax u marayaan meelaha ay maalgelinta ka helayaan iyo waxa la midka ah in xog laga helo waa waxyaabaha ugu badan oo lagula diriri karo iyadoo lala kaashanayo bulshada maxalliga ah lala kaashanayo soomaalida iyo dowladaha kale oo waxaanoo ka faa'iideyn karaba xagga amniga in lagula diriro magaalooyinka ay ka shaqaysanayaan oo maalka ka helayaan ama wax ka iibsanayaan in lagula diriro marka amniyan haddii loogu guulaysto sirtoodana in la helo sirta ciidankana laga xafita iyaga meelaha gurmadka iyo dhaqaaluhu uga imaanayana laga xiro arrintaasi waxay soo dedejinaysaa in dhaqso looga guulaysto midda kale waxaynu u baahannahay dadka soomaaliyeed oo ku dhex jira oo aan mabda ula socon hungurigu u geeyey in dadka ay la dhasheen la xariiraan oo hunguriga meesha geeyee waxna la siiyo nimanka meesha ay ka soo baxaan oo meesha marka ay ku soo haraan cisaabooyinka ama maafiyada dibadda ka timid oo marka ay dhulka ku dhex wareeraan baan u baahnaa kuwa marka waa in laga soo jiido leanna ninkii lacagtu hore ka qaatana meeluu ka cuno ku cuna buu u baahan yahay midda labaadna inuu noolaado awalba ilaa hunguri buu u galay in meesha marka nimankaasi gaar ah dadaal loo geliyo iyadoo lagu talagelayo in si qarsoodi ah loola xiriiri kara waayo way laynayaan way xasuuqayaan arrinta lixaadina waxa weeye waa in ciidanka la diriraya sadar laga bilaabo loo diyaariyo ciidamo si khaasa ciidamadii awal tababarnaa ciidamo khaasa in loo diyaariyo oo si gaara loogu tababaray dagaalka dhuumaalaysiga ama goorilaha la yidhaahdo dagaalka buuraha dagaalka kaymaha iyo waadiyaasha
hab gaar loogu tababaray rag ku tababaran nimankan waxa ay isticmaalayaan inay fikrad ka haystaan oo ka mid yihiin qaraxyadu ay ka mid yihiin miinooyinku ay ka mid yihiin sida naloo sheegay waxyaabo badan oo u baahan dad khibrad gaar ahaan tababar gaara u leh in la helana waynu u baahannahay waxaan rabaa inaan si gaara u xuso dagaalada qaybna waa muwaajaho laba ciidan baa iska hor yimaada qaybna ciidan awood leh iyo ciidan yar oo aan muwaajaha geli karin baa ku diriro oo waa dagaalka dhuumaalaysiga ama goorilaha loo yaqaan marka waxaynu u baahannahay ciidan dagaalka noocaasa u tababaran oo nimankan hadday isu yimaadaan oo awoodooda mideeyaanna awood xoog leh lagu weeraro oo la burburiyo hadday isqaybiyaan oo koox iska dhigaan dhuumaalaysi ku diriraysana rag u tababaran oo dhuumaalaysiga la gala oo meeshay galaanba ka dabagala in loo diyaariyo weeye laakiin haddaad ciidamo geedi ah ka daba wadidoo laysu kaa qaybiyo 10 iyo 5 iyo 20 la iska dhigo waa lu go'aysaa ama way ku lugoynayaan ama dagaalka kugu dheeraanaya marka labada habba ciidan u dirira ayaynu u baahanaa arrinta toddobaad waxa weeye hub mutatawira ama sare oo khaas ah oo waxa lagula dirira in la keeno hubka dawladaha saaxiibkana waa laga heli karaa suuqa madowna waa laga keeni karaa hub noocyo gaar ah oo u munaasiba dhulka noocaan oo laga dagaalamayo waxaynu u baahannahay ciidanka tayadiisa dagaal kor u soo qaadi kara oo aan hubka taqliidiga ama gaadiidka saaran ama ciidanku sito ka badan inaynu helabna waynu u baahannahay si degdeg loogu soo afjaro arrimahan u baahannahay waxa kamid ah ciidanka moralkiisa in kor loo qaado oo la dhiiri geliyo waxaynu u baahannahay si gaar ah in baahiyahooda loo daboolo qoysaskooda in si fiican loo racaayeeyo waxaan u baahannahay dhaawacooda si fiican looga hawlgalo taa waxay keenaysaa inay dhiiradaan oo ay adkaystaan waxaa ka mid ah in ummadda la mideeyo safka daakhiliga la mideeyo oo ummadii ay isku duubanto bulshada in la abaabulo oo la kiciyo oo tacbi'a kaamil ah lagu sameeyo oo laga dhigo ummad cadow jiritaankeeda iyo madax banaanideeda iyo ummadnimadeeda khatar ku ah inay ka hortagaysa loo diyaariyo oo la dareensiyo khatartan oo dadka aan loo sheegin waa niman dhowr oo meesha shaah ku cabayo la soo qabanayo ilaa aynu arkayno waxay dhaheen khayr wax kuma yeelee shar u tooghay dadka hadaad markii hore ku dagaal gelisid dhowr tuug baan meesha ka soo qabanaya oo hadhow wixii wax ka duwan yimaadaan waa la niyad jabaya marka dadku waa inay ku talagalaan dagaalku inuu dheeraan karo khasaare badanna uu keeni karo marka waa in ummaddu isku duuban tahay oo aynu ka caafimaad qabno waxyaabaha dadka burburinayo qabyaaladu ka mid tahay reer la isu haysto deegaan la isu haysto siyaasad la isu haysto waxa waa inaan ka dalacno mushkiladani gobolka barina ku gaar ma aha puntlandna ku gaar ma aha maamulka iyo ragga joogana ku gaar ma aha waa qadiyad ummadda Soomaaliyeed oo khusaysa halka hadii nimanka lagu burburin waaya maanta waa masiibo Soomaali sugayso oo meeshaas u joogta oo u fadhida oo haday doonaan soo badan doona oo kalsooni heli doona oo u baahan in si dhaqso ah looga takhaluso waxaynu u baahannahay in saraakiisha ciidanka hogaaminaysa iyo siyaasiyiinta maamulaya oo ka sareeya iyo mustawayaadka kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed oo ama maamul goboleedyo ama dawladda federaalka ahi arrintan in laga dhigin arrimo siyaasadeed saan u lahaa arrimo qabaa'ilina laga dhigino qadiyad ummaddu ay wada leedahay balaayaduna kuwan kaliya ma aha balaayooyinku way isdaba joogaan hadaynaan marka dalkeena balaayooyinka ka sifayn dadkeena midayn iskaashan inagoo dhan baa la ina waayay khutuuro badan baa dunida ka jirta mar kale ayaan ka warrami doonaa waxaan doonayaa waagii jabhadii hubaysnaayo dawladdii xaasiyaad barla diriri jiray baarakii ka qayb galay qaarkood ii sheekeeyay waxa jiri jiray bay yiraahdeen saraakiisha ciidanka hogaaminaysa waxa la yiraahdaa kaarka gubis laba nin oo saraakiila is haya dabcan siyaasiyiintuna waa saas oo kale nin baa ciidanka hogaaminaya oo dagaal gelinaya mid baa wuxuu diidayaa in la yiraahdo hebel baa guula dhaliyay oo magac helo marka ciidanka ayuu jabinayaa si aan hebel magac u helin siyaasiyiintuna sidaa waa yeelan marka arrintaas waxaan u xusayaa inaan ka digo qadiyadan siyaasiyiinta siciidani ku mucaaradka oo ama reer Puntland ama Soomaalida kale ay siyaasadda loolanka ay ka dhaxeeyaan kaarka gubis inaan mawduucan loo isticmaalin
saraakiisha ciidanka hogaaminaysaana aanay iyaguna isaga takhallusin oo aanay kaarka gubistaas jabhadihii dadkooda ku baabi'in jireen aan la isticmaalin ee qadiyad ummadeed in loo fakero baan ku dardaarmayaa waxaan qodobkaa kaga baxayaa dadka deegaanka degan oo bulshada Soomaaliyeed ah khataro badan baa ku wajahan waxaynu u baahannahay dadkaas in noloshooda iyo ammaankooda la ilaaliyo kaalmaha ay u baahan yihiin la siiyo dhulka ay ka barakaceen la tixgeliyo oo dad soo barakacay ahaan loola dhaqmo la iska ilaaliyo dadka inay nimankaasi qafaashaan oo say doonaan ay ka yeelaan qodobka ugu dambeeya oo dardaaranka ah guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan deegaanada Puntlandba si gaar ah arrintan waa khatar ummadeed saynu niriyay in la isu barbartaago dawladda Soomaaliyeed ee federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed iyo jaaliyaduhuba in ay taageero ka geystaan si gaar ah reer Puntland ay juhdi dheeraada iyo xil dheeraada isu saaraan si mushkiladaas dadka looga soo afjaro waa dardaaran siyaasiyiintana waan hormariya dardaarankooda ummad midaysan baa wax iska dhicisa mustaqbalna yeelata arrinta kale ciidankay ku gaar tahay waxaynu leenahay saraakiisha ciidanka ammaankooda iyo noloshooda iyo ha ilaaliyeen taxadar badan ha qabeen talo iyo qorshaha ku socdeen istustus iyo faan iyo kibir wax ma taro waxaan u baahannahay hiilka ilaahay baa bixiya ilaahay in la weydiisto waxyaabaha lagu helayo waxaa ka mid ah waxa inaad daacad ka toodar alla ay ka tahay dhaqankaagu inuu diinta waafaqo waxa aad ka shaqaynayso wax sharciga waafaqsan ay noqdaan nin ilaahay ku xiran inaad tahay oo salaada iyo quraanka iyo adkaarta iyo ducada aad ku dadaashid waxa ka mid ah tawbada iyo istighfaarta inuu qofku aad u badiyo sabir iyo adkaysi in nimanka lagula dagaalamo midnimo iyo isku duubni inuu ciidanku leeyahay kala dambayn iyo hoggaanka oo ciidanku u maqla inuu leeyahay baan ciidanka u dardaarmayna ciidan isku duuban oo isjecel oo isku kalsoon oo isku hilba diriraya oo dhaawac qaadaya oo istifaacaya oo isu gurmanaya oo aan oranayn qoladaasi waa qoladaas baynu u baahannahay amarka ciidanka iyo saraakiisha ku shaqeynaya hadduu nin walba suu doona yeelo waa la jabaya arrinta kale oo muhiimka ah waxa weeye sirta ilaalinteeda macluumaadkaaga iyo xogtaadu hadday baxaan nimanka lacag badan bay isticmaalayaan nin walba ay lacag siin karaan sirtu hadday baxdo way iibsanayaan waxaan u baahannahay saraakiisha iyo ciidankuba dhalinyarada gabdhaha ku shukaansata ama social media ku raadinaysa like iyo views uma baahna mawduucani waa mawduuc waa la dhimanaya waa la dhaawacmaya waa la daalaya waa la rafaadaya ninku waa inuu ajar ka helo waxaas waana inuu guul ku gaaro laakiin faan iyo digdig iyo isu soo bandhig haddii loo isticmaalo dhibaatay keenaysaa waxaynu ku dardaarmaynaa oo mar kale ku celinaynaa oo hadalkeena ku khatimaynaa khatartani inta ay la eg tahay hadda maanta taagan iyo khataraha ay soo wadato iyo haddii nimankaa la afjari waayo waxa ka dhalan doona waa in qorshaha lagu darsado sidii mushkiladda albaabkeeda loo soo xiri lahaana waa in aan maanta waxba laga hagran aad iyo aad baa u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu